sanadka oo maaragtay miilaadiga ay dhahaan oo masiixiyiinta ay u dabaaldegaan waxa weeye shay maaragtay diinta islaamka kasoo horjeeda oo aan islaamka uusan ogolaynin. dadka muslimiinta ahu islaamka ka hor waxay lahaa jireen ciida sidaas oo kaleentooda oo ay maaragtay u dabaaldegaan, laakiin markii islaamka uu yimiday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ugu bedelay 2 ciidood oo ay leeyihiin dadka muslimiinta oo markaasi ciidul fitriga iyo ciidul adxaa ah. ayagana waxaa loogu dabaaldegayo nicmo ilaahay oo weyn oo lasoo koobi karin markii lasoo gutay rugni ama 2 rugni oo mid uu yahay soonkii oo laga baxay oo wax badan oo fadaa'ila ku sugnaayeen ayaa farxad la muujinayaa, iyo rugnigii kale oo xajka oo markii maalinta maaragtay bisha ay tahay 10 ay tahay dilxija oo xajka acmaashiisi mucdamkeeda la guto ayadana waxa weeye la ciidaysanayo. taas ayaa maaragtay ciidul muslimiin la yidhaahdaa. sanadka islaamkuna waxa uu ka bilaabanayaa markaas ka bacdi bisha oo maaragtay muxaram soomaalidu sikada ay u taqaano ayuu ka bilowdaa. ilaahay subxaanahu watacaalana sanadka uu qur-aanka uu ku sheegay waa sanadka maaragtay islaamka oo bilaha muslimka oo hilaaliga lagu xisaabayo. ilaahay samaawaadkan iyo arradan marka uu abuuray ayay kasoo bilaabanaysay. marka waxaa nasiib darro ah dadka muslimiinta ahu inaynan maanta aqoonin inay maaragtay leeyihiin sanad ayaga maaragtay xurmo iyo sharaf ule iyo qadarin iyo ciido oo u gaara inay leeyihiin. taas waxay kamid tahay dadkii oo diintii ka lumay oo jahli maaragtay oo xaaraama qaatay. diinta islaamku ma ogola, rasuulkeenana waa uu ka digay calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah inay isku shabahaan dadka gaalada oo rasuulkeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam maaragtay aqoon isku shabaha ma jiraan uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoon kaleentood ilaa maalinta qiyaamo ayaa lala soo bixiyaa. marka man tashabaha biqawmin fahuwa minhum nawaadha rasuulka calayhi salaatu wasalaam qola qofkii isku shabaho ku daysada ayuu kamid yahay. marka isku shabahidaas gaalada la isku shabahayo waa arrin khatara weeye. arrintaasu waana in raali laga noqdo macaasidooda iyo kufriyaadkooda raali laga noqdo. khatarna waxay dadka muslimiinta ugu sugan yihiin ayna dhici karaysaa. nabigu waxau dhahay almar'u maca man axaba yawma alqiyaamati qofkuu jecel yahaa maalinta qiyaama micigiisa lasoo bixiyaa oo la jiri doonaa. dadka marka arrimaha samaynaya oo muslimiinta oo maaragtay diintoodii aqoonin, ciidoodii aan aqoonin, sanadkoodii aan aqoonin, jahligaasna u bareeray maalinta qiyaame ilaahay baa ku xisaabi doona. gaalada ay ku dayanayaanne beri qiyaamo micigooday noqonayaan haddaysan ka tawba keenin. marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u fool xun oo nasiib darro ah. waayahay aad buu umahadsan yahay sheekh maxamuud oo cabdulle cariif ayuu kaasi ahaa oo ka warramayay waxa ay diinta islaamka ka qabto in dabaaldeg la sameeyo sanadka cusub ee miilaadiga.